السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta ku xidhan kanaalkan 10 yar oo kale ayaa maanta idaahay oo kooban oo ku saabsan problemka ku dhaca Windows-ka maaragtay Windows-ku problem badan buu leeyahay ka mid yahay bahalkii bartaba dhaaf waayba inta wada dhaaf maayo kidiga maanta taas buu ku soo dhaynaya bahalkii hore u shidin waaya waqti ka qaatay inuu shidmo shirtaag waqti ka qaata ma garanaysan wixii caadi buu noqon waayay macnaha inaad waqti badan sugto qaabka noqdoba horta waxa keenay koow culays badan oo ku dhaca maskaxda gudaha computerka GB-ga ugu buuxa update roona siinin Windows kana bedelin waxyaabo badan baa keenay computerada qaar sadogtiin laabtooda yar-yarka ay ku waaweyn qaar baan lahayn CD ma la geliyo sida marka kanoo kale yalla furo CD la geliyo male ma garatan ilaa ka maarsan kaas inuu jira Windows dhan Windows 10 gabi uu ku dhaco problemkaas ma garatan marka flash baad ku soo qaadaysaa Windows-ka inaan format gareyn rabaa imika flash baad ku soo qaadaysaa waan soo saar doonaa 10 ku saabsan qaabka flash loogu shubo Windows-ka dhan waan soo dhigi doonaa duu Allah ilaa insha Allah marka flash-dan gashanaa ila socdo marka banaan qaabka inuu format gareynaa intuuso bas timka kaasuu ku tahay format weyn wax kala ma noqonay halka dhaaf maayo dad qora ku qodata marka wata flash ba hadda gashaday soo maartan marka sida markuu yahay waxa sameynaysaa F2 da maartan F2 da la dhaca F2 da soo la dhaca F2 da la dhaca qaabka ku soo baxay hade qaybta kood waa information qaybta koobadi waa information sida maartan waa talabaad meenta saddexaad security boot halka tag sugubal soo maartan marka si faaso maartan halka tag halka soo maartid waxa ku qoran UEFI waan yaha ko soo enable marka asxaabta ka shaqeynaysid meelaha yar laptop laga shaqeeyo waxa ku shaqeynayaan agaas ku waagay calaamadahaas ku qoranayaa F1 waa helbin exit ku dad escape tada tabato exit ka bixitaanki selection items-ka kuwaad ka shaqeynaysaa isaga ku waagay marka waa ku sheegaya kuwan inta ka shaqeynaysaa inta yo numberskaas F4 F3 F5 F6 wada ka halkaas jooga halkaas doonayna bedelo imka boot baan jooga halkaas bedelaya intercy ee kan ka taasoo qaatay saasan soconaya tanaka kuna ka socda kuwan okay marka halka UFE da wanta soo intersinaya saas igu soo baxsa LHC iyo UFA1 host LHC oo intersi okay ka baxada agar bax x safe change bad okay sinasa okay badana sinasa qaabka ku soo baxay F laga toba taabanaysa ila suga F laga toba taabo sayas bedeliya oo qaabkaas uu saxada suuqa bedel markii wada ragta waka saddexdan doo aan dikra sharaxo saddexdan ayaan ku kala sharaxaya xabadda kood wuxuu ku leeyahay HDD Toshiba network boot iyo USB HDD tasare oo qofka canjada haysta HDD Toshiba iyo waxyaabaha la midka ah waxyaabaha garas talabaad waa network xadiga intercomputer galgelin internet soo qaada kala galin maarta taas waa network tan waa USB kan hada haysana oo soo deg marka saddexda ku dhagay haysta ku format galaysa oo soo deg USB intersi isbaqtiin doona qaabkaas uu ku soo baxay marka aynu isla socono